Somali kama nangoyn waxaan nahay garab kamida waxaan goobnaa midnimo haddana maamul gaar ah oo dantooda gartaanu nahay Somali kama nangoyn waxaan nahay garab kamida waxaan goobnaa midnimo haddana maamul gaar ah oo dantooda gartaanu nahay waxaan uga socdaa ugu salaamaya qof walba maamuuska iyo madasha uu ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa runtii sharaf weyn noo ah in kulanka noocaana uu ku qabsoomo magaalada Garowe iyo dalka Soomaaliya guud ahaan markii ugu horreysay waxaan uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta Heritage oo iyagu gartay oo iyagu soo gartay inay halku dhigaan annagana naga codsaday iyagaa iskale fadliga dadka halka isugu yimid iyagaa dadka casumay iyagaa dadka isu keenay annagana waajibkiina saarnaa ayaan gudan maadaama marka sidaan oo kale hawl loo qabto dadka badankiisa xamar ka yimid xamar hawsha dadka marka loogu yaro wax ka dhacaan waa laga tacsiyeeyaa marka waa ka tacsiyeynayna iyadana wixii khaldamay dadka reer Puntland ma yaqaanaan dhaqankaas laakiin waa dhaqan koonfurta ka jira in laga tacsiyeeyo wixii gaabi soo dhacay marka waa ka tacsiyeeyo waana ka cudur daaranaynaa insha Allah marka aad baad mahadsantihiin dalkiina waa joogtaan deegaankiina waa joogtaan in lama soo dhaweynayo waan ku faraxsanahay dadka ka soo qayb galay oo aan ogahay hawlaha badan ee u yaalay iyo sida ay u soo ajiibeen inay kulankan ka soo qayb galaan oo aan filayo inuu ku soo aaday marxalad loo baahnaa inay dadka Soomaaliyeed madaxdiisa iyo waxgaradkiisa ay isu yimaadaan oo fursad ay ku wada hadlaan oo wax ku rogrogaan ay helaan waxaan u rajaynayaa shirka guul waxaan u rajaynayaa muddada la joogo nabadgelyo iyo caafimaad in lagu joogo waxaan u rajaynayaa in ay ka soo baxaan mirar dhal wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ee aayatiinkeeda wax ka tara shirka iyo shirab duceeyada iyo fursadaha kale oo la isku helay intaba waxaan noo wada rajaynayaa guul iyo xasilooni iyo deganaansho iyo horumar iyo arrimaha taagan ee hadda la sheegay in marxaladda soo socoto Ilaahay uu naga saaro oo ku meel gaar iyo waxyaabaha dastuurku meel gaar iyo waxa la sheego dhan Ilaahay naga saaro dal xasilan oo nabada dadkiisu israbo oo meel wada jeedo oo midnimada iyo wada jirka la adkeeyo wixii midmadooda jirana la xalay ayaan wada rajaynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed dadkiisaba waa mahadsantiin